وعماس كلا الله سبحانه وتعالى نسكو كان كيناي ميشان anagoo nabad qabna waxaan rajaynayaa maanta waxaan qaadan doonaa seminar erga seminar macnihiisu waa short knowledge markaan ka hadlayna seminarku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha qofka dhisa waxyaabaha ugu muhiimsan ha ahaato xagga aqoonta xagga diyaarsanaanta adduunka waxaa la tixgeliyaa wax la yiraahdo seminarka tusaale qofku ardayda qaar hadda waxay ka baxayaan secondary level waxay u gudbayaan academic level jaamacadeed marka jaamacad dhameyso ama bachelor aad diyaariso wax macna ma sameyn doonto in bachelor qalalan iyo aad diyaariso wax la yiraahdo master qalalan sidaas daraadeed waxaa la fiiriyaa adduunka wax la yiraahdo workshops means seminarku marka maxaa waa short knowledge wax ballaaran ma laakiin waa wax marka aad qaadato wax badan change aad sameynayso muhiimadu in leeyahay seminarka awgeed waxaan garwaaqsanay maadaama isbuuca dambe iskuulka la furaayo isbuucan inaad qaadataan wax la yiraahdo seminar oo aad ka faa'iideysanaysaan seminarkaas qaybo kala duwan oo ha maalintii isniinta waxaan ku ballansanay wax la yiraahdo seminar ku saabsan time management insha Allah dibaan ka qaadan doonaa time management seminarkaas waxaana bixin doona anada lecturer bixin doona ama macallin kala bixin doona anigu waxaan ku qornaa wax la yiraahdo seminarka ku saabsan qaybtiisa personal development oo xaqiiqdii ah personal development-ga marka laga hadlayo qofka waxa loo baahan yahay shakhsiyadiisa sidoo ka hormari lahaa waana wax from beginning up to until grave ee aan fici doona sababta maxaa yeelay qofka waxa laga yaabaa maanta markuu fahmo personal development-gu wuxuu yahay in tomorrow a change la imaato qofkii aan maanta waxyaabo badan ay ka dhimanaadeen markuu qaato seminarkan short course-gan waxaan arki doonaa insha Allah dad badan inay isbedel ku sameyn doonaan qofku waxa fiican marka uu wax barto ama wax la wacyi geliyo orientation loo sameeyo inuu change sameyn karo haddaba waxaan qaadan doonaa wax la yiraahdo personal development horta ugu horeen waxaan u baahanahay inaan fahano understanding personal development waxa uu yahay personal development wax kala ma aha personal development waa includes activities that improve awareness and identity qofka waxa loo baahan yahay in uu cadeeyo improvement ku sameeyo uu hormariyo waxa la yiraahdo awareness fahmida and identity iyo aqoonsiga sidoo kale develop talent maxaa waaye qofka awoodiisa dabiiciga inuu hormariyo means talent qofkan waa talented Allah sama xirfadiisu talent u leeyahay waxaan and potential iyo waxyaabaha suuragalka iman kara inuu qofku hormariyo sidoo kale inuu dhiso wax la yiraahdo build human capital ka muxuu yahay qofku waa inuu dhisaa knowledge-kiisa aqoontiisa waa inuu dhisaa experience khibradiisa waa inuu dhisaa si la mid ah sidoo kale human capital-ka waxa waaye inuu dhiso wax la yiraahdo skill-kiisa xirfadiisa inuu dhiso this maxaa waaye waa development ku sameynayso personality-gaaga shakhsiyadaada marka and facilitate sidoo kale waxay fududeysaa wax la yiraahdo personal development-ga employability-gaaga inaad shaqo hesho ama aad shaqeyso waxay fududeysaa wax la yiraahdo inaad sameyso wax la yiraahdo personal development haddaba sidoo kale enhance quality of life personal development-ga muxuu kor u qaadaa enhancement muxuu kor u qaada ku sameynayaa quality of life tayada noloshaada ayuu kor u qaadayaa personal development-gaaga and contribute wuxuuna bixinayaa to a realization inaad xaqiiqsato oo ogaato of dreams-kaagi riyooyinkaagi waxay ahaayeen inaad xaqiijiso and aspirations-kaagi aspirations-ka maxaa waaye waxyaabaha aad ku riyoonayso ama aad haminayso hamigaaga aad lahayd ambition your ambition macnaha hamigaagi inaad hormariso inta waxa ka saamaxay wax la yiraahdo intaas waxa la isku magacaabaa personal development warbayna personal development sidaas ku qeexayna marka improvement inaad sameyso maro in la dilacsiin noqdo maamul inuu noqdo dis maxaa keenaya marka superior work performance inaad qabato haddaba waxa halkaas ku fahmayna wax la yiraahdo haddaba kana fiiri marka exhibit superior work performance waxa la rabaa producing error free work waxa loo baahan yahay inaad soo saarto shaqo ka madax banaan khaladaad
sababta haday imaado tusaalahaan financial statement iyo organization ka aad hayso qofka dhan oo waxaad ahayd xisaabiyaha ah markii information ka aad dejisan waxba maqan meesha maxaa jira error ba jira Soomaa hadiiba marka aad soo bandhigayso wax qabadka mid ugu sareeyo waxa loo baahan yahay inaad soo saarto inaad qabato error free work shaqa ka madax banaan qaladaad shaqada aad qabanayso inay free work ay tamina shaqa xor ay tahay oo waxba qaladaad ka iman meeting deadlines fiir waxyaabaha qofka personality-giisa kor u qaada waxay kamid tahay quality-giisa waxa kamid ah meeting deadlines tusaalahaan waxa lagu leeyahay meel waqti hebel ayaa samid ugu dambeeyay waxa inaad soo gudbiso inaysan delay noqon wixii inaad ka dib dhicin markii loo baahnaa inaad qabato shaqadan inaad ka dib dhicin sababta maxay yeelay waa deadline-ki samid dheegi xilliga ugu dambeeyay oo loogu talagalay tusaalahaan waxa la yiri information ka waxa soo gudbisaa 8 bisha July waa deadline-ka Soomaa wixii ka dambeeyay maxay noqonay late ina noqoto waxa hadaba personal quality waxa ku qaadso kala meeting deadlines-ka inaad la kulanto oo aad daboosho waxa la yiraahdo waxyaabo waxa ay dhacayeen bal fiir hadana personal quality kaash sameyn karo wada shaqeyn dad dhex mari karta inaad tafiiriya in dad macnaha tacaamul la sameyn karto qof aqbali kara waxyaabaha qaar shaqooyinka qaar waxa qofka personality-giisa waxa kamid ah waa arki doona waxyaabaha iska ilaali doonte qof waa shaqaale waxa laga yaabaa qofka aan u shaqeynayso inuu kugu qayliyo inuu hadal ku dhaadhibsanayso ma loo baahna marka waa inaad aqbali kartaa waxyaabo walba ku soo wajaha adoo ka fiirinaya dantaada iyo waxyaabo achievement-ga aragtay inaad gaarto qof waxa arkaysaa macnaha meel laga shaqeeyo hadii waxa saas aan Musa idhaa intuu ka dagaa this way ever malahan macnaha tolerance malaha waa noo soo socotaa dulqaad buu salahayn qofka waxa loo baahan marka agreement waxa kamid ah cooperative qof iskaashi sameey ama wada shaqeyn dad dhexmar karto inuu noqdo second waxa la baahan good natured fiiriya inaad dabeecad wanaagsan tahay nature dabcigaagu inuu wanaagsan yahay loo baahan yahay waxa loo baahan yahay qofka personality waxyaabaha kor u qaadi kara waxa kamid ah yaa soft hearted inuu noqdo qof raxmad leh qofka ana raxmad leedahay dadka soo jeeda kara soft hearted waa noqotaa afar maxaa loo baahan yahay waxyaabaha laga aqbal karo maxaa kamid ah tolerant maxaa tolerant qof dulqaad leh inaad noqoto ugu dambeynna trust in lagu aamini karo la rabo fiir waa astaanta labaad oo agri hormaan rabaa inaan ku barto within 2 years labadii astaanba waa laga helay clear goal waa markii waa ii cadiya ani waxaan rabaa graphic design inaan noqdo laakiin education ka fiir muddo la diidan aan clear ka ahayn meeqa aqoon jirto la barto حسابية ما نقولنا إنجنير ما نقولنا أكاونتنت ما نقولنا دكتور ما نقولنا أركيتكت ما نقولنا ما نقولنا وبنته لويا ما نقولنا تسمع الحساب كرم أنت ديجري أول برتو قد أنا education اللي تري بس تيور لكن أنت وعد هاي specific goal كي وحواي graphic design أنا أنقف صورنا شغلية ديجري جالس كبح والله برتام ما معنا واحد لسه ما يلفتر كذا ديجري بلا graphic design وحنا الرباب إن أنكو برتقارمه 2 years لبا سنة أنكو برنا ديس محاول و specific one period of time نوالله ده و 2 years وح أبرنا سنة محاول graphic design clear goal وكسمر لبا فيري reduce my stress level وحنا الرباب يري إن أن يريه هير كيجا stress كمعنا ولول كيغفرن إن أن يريه بس أنكو يريه كرا مش يجيني قارمان يريه كرا مش يجيني clear مياكاس ما يفاجئ يقوله كلير محنوقة كرافيرو كنا lower my blood pressure إنا يريو عدالس كديجة إنا يريو 8 points إنا كديجو by attending أنا كقيب قالها يا yoga classes ولا يغنى سما yoga class ولا يغنى يا نفط ولا يغنى ما كان كذا مركا blood pressure كي محنكو يرين كرا إنا كقيب قاتو أن كقيب قاله yoga classes yoga classes kaasna maxaa uga qayb qaadanaya 3 nights a week this fall salama jeedo isbuuciiba 3 hameen inaan yoga class ka xaadiro si hoos ugu dhaco barad barashada waa specific period of time sababta waqti maxaa u baahan yahay isma timely ina waqti aad ku qabato ilaa wax walba waa consumption of time waqti qaadanaysa soma wax walba time bay qaadanayaan waxa loo baahan yahay inaad time aad ku bixiso marka هذا وين أسود زمرك محاوي what's your deadline يا محوي هاي deadline كذا وودم بيا for a completion this goal يول كان سأدور ما يسترتو time وودم بيا أذكر ما يستر كرتوا قارمة
timely loo baahan this we call waxaan ku magacaabnaa criteria for smart goals ereyga smart means markii la joogo ka intaas laga soo gaabi s2 maxaa waaye specific m2 maxaa waaye measurable a2 maxaa waaye attainable r2 maxaa waaye relevant t2 maxaa waaye timely waqti inay ku bas galaysantahay nabad